وهجاج waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijkeena arrimaha ee gobolka waqooyi bari oo haadaan oo kale aad kala socotaan telefishinka shakaal barnaamijka waxaan ku soo qaadanaan ku falanqeynaa arrimihii ugu dambeeyay ka tagan gobolka waqooyi bari balse toddobaadkan barnaamijka uu ka duwan yahay ayo waxaa diiraddan ku saari doonaa isku shaandhaynta golaha wasiirada uu sameeyay madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto sanad kadib waxaa arrimahaas ay falanqeyn doonaa wasiirada qaar ayaa laga qaaday xilalkii ahayeen halka loo bedelay xafiisyo kala gidsan arrintaasi waxyaaba keenay iyo saameynta ay ku yeelan karto dhanka iyo dawladda ayaan barnaamijkeena gudaha maanta diiraddan ku saari doonaa waxaa soo kale dawladda ay soo saartay arrinta ku saabsan safiiradaha ay u magacawday wadamo kala gidsan markii ugu horeysay dawladda Kenya ayaa waxa ay safiir ay u magacawday meesha la yiraahdo Hargeysa oo ka tirsan Somaliland iyadoo safiirkan loo magacaabay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya arrimahaas dhan barnaamijkeena maanta aan ku falanqeyn doonaa saameynta ay ku yeelan karto ayaa barnaamijkeena maanta gudaha diiraddan ku saari doonaa stuudiyaha barnaamijka waxa martigo ah oo arrimahan ila falanqeyn doono Maxamed Sheekh oo ku macallin rasa Karura waa qabiir falanqeyn arrimaha dhanka siyaasadda ee barnaamijka martigo oo arrimaha maanta aan la falanqeyn doono Maxamed ku soo dhaw barnaamijka ku soo dhaw stuudiyaha bismillaahir rahmaanir rahiim walaal aadan dhownahay markaan waa azimkan aad baa ugu mahadsan tahay waan isla joognaa insha Allah ma sha Allah aad baad u mahadsan tahay toddobaadkan waxaan la soconaa in markii ugu horeysay tani waqtigii dawladdan William Ruto loo dhaariyay xilka madaxweynaha in ay sameysay isku shaandhayn waana waxyaabo inta badan Kenyaanka ay filanayaan waayo waxaan aragnay wasiirada qaar oo hadallada qaar ay jeedinayaan inay kala duwan tahay talaabooyinka ama ficilada dawladda ay sameynayso marka si kooban isku shaandhaynta ama reshabalka madaxweynaha uu sameeyay sidoo u aragtaa maxaana keenay islaada waqti xadirkan horta mid horeysa waxa waaya shaandhaynka asaga madaxweynaha Ruto waa mid la sugay maxay yeelay waxa jira wasiiriin qaar oo xilkii sidii aan rabay ugu soo bixin hal sano gudaheed waa waqti madaxweynaha uu ogaani kara ninkii uu magacaabay meeshii uu magacaabay ma ka muuqda miska ma muuqdo haddii aad fiiriso inta hataa ay bilaabeen asaga shaandhayskiisa u bilaabeen baraha bulshada aad bay u haysatay arrimo uuna keenay ninka oo kale Moses Kuria ninkan kale oo maxaa la Alfred Mutua arrimo ay keeneen ayaa jiray oo hataa qaar ay codsanayeen haddaad fiirisid kama ninkan hadda oo maxaa la Moses Kuria oo kale waxaa jiray online petition oo madaxweynaha ay leeyihiin ninkaas xilka laga qaado oo ma qalmo meeshaas ka bixi shaqada ka bixi waxyaalahaas ay iska jiray soo madaxweynaha waxa waay hal sano markuu gaaray waa isfadhiistay qof kasta wuxuu saarnay cabirka uu saaray miisaanka ayuu saaray yaa xilki asiga aan u dhiibay safaan u guti yaan u gudinin hadii meeshan aan ka qaado xagga geysaan ma dhaamay doona arrimo saas ayuu madaxweynaha subay waana arrin oo maxaa la dhahaa qof kasta oo madaxweyne uu subin lahay waqtigii Kibaki waa la subay waqtigii Uhuru waa la subay soo maanta wax saas u weyn maaha laakiin waa arrin jirtay aniga ahaan hataa dadka qaar kama hadda Moses Kuria oo kale ma baahan in meel laga qaado oo meel kale geeyo waxaan maleynaa ninkaas oo kale waxa iska fiicnad asagoo xasil ka qaado meesha ka qaado shaqada ka qaado maxay yeelay qofkii ninkaas horta hadda meesha loo dhiibay asagoo waxaad meesha ganacsiga markay tahayna wadamo kale iyo qurbaha balaadas la kulmaysaa ninkan waxa waay waa nin waqti kasta afxuma iyo hanjam iyo qaylo ku jiro soo markaan hadii waqti meesha ayda asahay asagoo meesha ayda haye xilka ayda haye mid uu horeyso caawashada soo dhibito waxay dawladda Mareykanka oo dhaad aniga ninkan isla ma shaqeyn karan waa tii madaxweynaha wuxuu magacaabay Aadan Maxamed oo asagoo meesha joogo ay Aadan Maxamed loo dhiibay wasaaradda ayda alaabteeda ama culeyskeeda weyn Aadan Maxamed ayaa loo dhiibay soo ninka asaga oo kala hadii meel kale aad bari asgeysadna wax isbedelaad male soo aniga markaan shaandhaynka ma xumo laakiin wixii hadda maanta dib ka jajara aniga waxa dhilahay Moses Kuria oo kale wasaaradda laga qabo wasaaradda kala geey wax faa'iido weyn oo keenaysa ma laha laakiin waa mid madaxweynaha u banaan inuu hagaajiyo asaga shakhsi ahaan dawladdiisa uu kala wadahay asaga ay u taala laakiin dadka qaar waxay qabaan markaad fiiriso online ama baraha bulshada waxay leeyihiin talaabadan uu madaxweynaha ku dhaqaaqay inuu isku shaandhayn sameeyo waxay leeyihiin waxay keenaysaa cabsi uu madaxweynaha qabo in ragga qaar uu shaqada ka tirtiro waayo Kenyan qaar waxay leeyihiin waan aragnay wasiirada qaar halka sano inay shaqadooda ka soo baxay marka waxay leeyihiin muxuusan shaqada u tirtir waayay beddelkii isku shaandhayn sameyn lahaa marka marsi dhigi kara madaxweynaha cabsi ayuu dareemay dhanka siyaasadda waayo wuxuu yahay shakhsi eegaya 2027 eegaya marka cabsi miyuu dareemay madaxweynaha ayda on la gaarin 2027 aan la gaarin dawladda hadda joogta madaxweynaha waa la soo dhisay madaxweyne ku xigeen ayaa jira oo ka imaaday cidii kokiyada ka imaaday as iyo isagoo xaafada kale ka imaaday
iyo dad kale oo maanta maxaa la hadda western Kenya oo kale xoogooda soo dhiseen ayaa jira soo madaxweynaha go'aankiisa toos iska magaari kara waa sida aad sheegay ninkii madaxweyne ku-xigeenka wuxuu dhahay dawladdan shareholder leeyahay waa qof walba share ayuu leeyahay share buu leeyahay dawladdan waa dawlad shareholder qof kasta wuxuu keenay hatta northeastern wax bay la imaaday western wax bay la imaaday central iyo maxaa la dhahaa dhinacan upper eastern wax bay la imaadeen wixii ayaga hay markaas bedelaysid horta waa inay guddiga u yeerto kula soo shaqeeyo oo dhahay war hebel wuxuu ku soo jeedaa qoyska ku soo jeedaa laakiin ima anficin markaysa hatta hadda la bedelahay waa inay kala imaado dhahan ninka nooga bedel sax soo dawladda dhamaala meel kasta oo joogto inta Kenya kale xmaan meel kasta oo joogto dawladda waxa lagu soo dhisaa waa un yani yaa ila soo dhinsi yaa ila soo rafaaday yaa wax ila keeni kursiga madaxweynaha iska miimaday rag baa ka dambeeyay soo rag ay ka hay markii meesha la geeyay waa kugu mid baa kugu ficnaana mid baa kugu xumaana laakiin bedelka la bedel lahay kii kugu xumaanay qoys buu dawlad la galaya wuxuu xisbi buu dawlad la galaya maxay meeshan baatiyal badan baa isku imaaday soo xisbiga isaga ninkaas ka soo jeeda hadda maanta Alfred Mutua oo kala daar rabtid Mandela chap xisbiga waxay ku leeyihiin anaga ninka toos bixisid yaa meesha ugu bedelaysa Moses Kuria sida oo kale haddii midkii imaaday Ford Kenya oo kale sida oo kale soo madaxweynaha waxay ku qasabtay asaga oo xiisa aan kicinin iyo nimanka kale oo la jir maanta haddii aas daartad qof Western Kenya kima wasiir hadda shaqada ka istaajist Wetangula oo speaker National Assembly ninkan kale cabinet prime minister Mudavadi xiisa ayaa ka ciis waxay iyaka leeyahay idinka meesha ku jirtiin laakiin cidayna lagu maadahaya soo asaga xiisada iyada aan kicin aan rabin waa inay isku shaandhay ayaa imaaday laakiin isku shaandhayntaas aad shaandhay waxa u maleynaa waa iska wax weyn maanta bedelaad kana maaha waxay nin maanta gogashan ama xilkan ka soo bixi waay xil kale kama soo bixi kara soo waxa ficnaad in qaarna isku shaandhay qaarna xilka iska qaado saas ayaa ficnaad okay wasiirkan tusaalahan fiirina ganacsiga Moses Kuria waa siyaasi xeel badan wadankan ka soo qabtay dadka qaar waxay ku tilmaamaan inuu yahay nin aad iyo aad u firfircoon wasaaradda loo dhibay uu aqaanayo meelo badan sida carabta uu ka soo shaqeeyay marka waxay leeyihiin rajo badan ay laga lahaa in ganacsiyaal far badan inuu wadanka ku soo xirayo hadda maadaama la bedelay oo la geeyay wasaarad kale arrimaha dhanka iyo shaqaalaha ee loo yaqaan public service iyo la socodka dawladda waxaad moodaa shalay markuu joogay Garis waxaad moodaa inuu aad iyo aad u hanjabo leeyahay dad baa rabo leeyahay inay shaqada iga bixiyaan waxa la isweydiinaya yaa la dagaalan ama yaa dagaal ku jira ninka Moses Kuria madaxweyne ku-xigeenka miya mise shakhsiyaal kale asaga ka soo jeeda gobolkooda ayaa la dagaalamay rabo inay xilka ka qaadaan asaga naftigiisu uu hanjabay Moses Kuria dad eegta hadalkiisa horta mid hore waxa waaye Moses Kuria kale xataa ma dhihi karno dawladda dhamaalo hadda xilka haysa waxaad u maleynaysaa inay joogaan waqtigii campaign-ka ololaha ku jireen madaxweynaha naftankiisa hadduu taga meel weli ballamo uu sii qaadaya kuwii horena ka soo bixi lahay ballamo kale uu soo qaadaya haddii aad fiirisid ninkan prime minister oo kale waa sida oo kale madaxweyne ku-xigeenka waa sida oo kale wasiirinta haba sheegin soo mid horeysa waxa waaye dawladda iyada is xakameyn la maxaa yeelay siyaasad way soo dhamaatay hadda waxaa la joogaa waqtiga bulshada loo adeegay haddii aad fiirisid Moses Kuria oo kale Moses Kuria waa nin siyaasi ah siyaasiyiinna waa siyaasi ma taqaanaa yani qofka waa dadka la adeegsado dadkii la adeegsado waqtigii siyaasadda ay jirta waxa yeelay hadal ama madaxweynaha as dhihi karin ayaa jirta hadal as dhihi karin madaxweyne ku-xigeenka ayaa jira soo dad waxaa jira iyaga afhayeen u oo saas dheh hadal loo dhiibto ragaas waay Moses Kuria waxaa iskaga qasay markaana inaad wasiir aas yahay iyo inaad xildhibaan Gatundu ka soo gal wali u yahay tii aad iskaga qasay wari weerarka ku jira markaan asaga kale ma runta daan sheegay asaga kale ma hadii aad fiirisid hadda walaalkan Ducaale oo kale Ducaale maanta markaas halla ama bulaha astaga barsadaha astaga wuxuu ismoodaa inuu yahay xildhibaan township Garissa township ayuu ismoodaa hadii aad fiirisid maxalla ka soo qaba ninkan kale oo maxal dhahaa wasiirka loo dhibay isagana kan Meru oo minister of Akinduki sida oo kale way midka kale oo jooga agriculture minister of agriculture Linturi waa sida oo kale markaan laba arrin jirto qofka siyaasiga ku jiro MP soo ahaan jiray isagoo MP la soo doorto marka xilka ka qaadid oo wasiirnimo asgeys qofka isaga hay waxa niyada ama ficilkiisa ugu jirto inuu siyaasi u yahay arrinta siyaasinimada ayaa weli ku jirta hadii aad fiirsid sharciga hadda 20 constitution wadanka u yeela constitution wadanka u yeela wuxuu leeyahay nimanka loo dooran doono wasiirinta ha noqdeen dad professionals oo siyaasad aan ku jiro technocrats ha noqdeen maxaa loo yeelay sharcigu wuxuu fiirinay nimanka ayaga inay noqon doonaan niman ku salaysan shaqo qabasho kaliya laakiin hadda wixii meesha la geey waa nin siyaasi siyaasadana uu ku jiro
markaysa shaqawshada uu ku jira laba arrin isku wada Siyaasadda marka kama ha siyaasan ka maarmo hadda waxaad arkaysaa maanta nin wasiir oo foreign affairs diplomat صح diplomat si fiican haddii ay Maraykan ama Ingiriis ay soo bixiyaan wax la dhaha advisory صح advisor hadday soo bixiyaan oo ay dhahaan anaka siyaasadda waqtiga hadda qabsiga as jiri oo Raila iyo Azimio ay dagaalka hagaajinayeen waxay soo bixiyeen warqada ay soo qoreen صح yaa dawladdi saan ay dhibkeeda way dad bay laynahaysaa dad bay maxaa la mudaharaad ku diidahaysaa xaqay ku tumanahaysaa bay dhaheen xagan kalena waa cambaareen ay dhaheen yani alaab bay jijibinahayaan gaariyaashii dadkii ammaankii ay qasahayaan laba waxay had statement laba dhinacba cambaaraynaysa niman dawladda ku jiri oo xagga wasiirka maxaa la dhahaa arrimaha dibadda ayaa inta soo istaagan aan nimanka ay ka cambaarayna berina waxaad rabtaa inaad meeshan ka tagtid la soo fadhiisad nimanka ay ka hay oo arrin wadanka iskala hadashid soo dadka markaan waxa iskaga qasan wasiirinta waxa iskaga qasan siyaasadii ay ku jireen iyo wasiirnimadii markaas wasiir astahay arrimo waxaa jirta aad iska heli karin maxaa yeelay berri hadda Maraykan aad cambaarays oo maanta Maraykan wax kasta iska sheegtid berri nin Maraykan مثلا او امباسادور اي لما فريسن كرت ارن لا ودن كما هل كرتين maxaa yeelay adiga banaanka aad soo dhigtay inaad Maraykanka hore maatan tahay oo cambaareenaysid oo wixii ay qabeen niidooda astageerin soo markaan dibka jira waxa waaye niman siyaasi ku jireen ayaa loo magacaabay xilli meel maxal lahaa wasiirnimo cilada keenaysa taas horta dibka weyn taas mid labaad madaxweynaha kama adka wasiirintiis maxaa yeelay nimanka shalay la soo rafaadeen way la soo dhinteen inuu u yeero ma dhigi kara idinka waqtigan siyaasiyiin waa ka soo baxteen siyaasad waa in ka soo dhamaatay bulshadu waa adeega ma dhigi kara maxaa yeelay madaxweynaha marka aas hadla ama Raila hadlay ama Kalonzo hadlay inta uu hadlay madaxweynaha falcelin oo ku celin waxa hadla wasiirinti ayaa falcelinaysa wasiirinta marka waxay yihiin nimankii dawladda mathalay siyaasad ay kuma jiraan ninka mucaaradka ayaa mathalan ninka kale oo dawladda taageera ayaa mathalan soo wixii iskaga qasan marka soo madaxweynaha waxa laga rabaa inuu amar u bixiyo uu dhigi kara nin wasiir kama xalli kara arrin siyaaso sharciga taas waa okay madaxweyne William Ruto markuu soo magacaabay golaha wasiirada uu liiska soo saaray eedeynta ugu badan ee madaxweynaha loo jeeday waxay ahayd in tirada ugu badan golahiisa wasiirada ay yihiin siyaasiyiin inay yihiin marka tira yar ayaa dad technocrats oo meel badan ka soo shaqeeyay oo khibrad u leh oo aan siyaasad ku jirin tirada aad u yarta marka la isbarbar dhigo inta technocrat iyo inta siyaasiyiinta ayaa fara badan ma la isdhihi karaa taas inay saameyn ku yeelan karto asaga 5 sano markay dhamaato marka la fiiriyo scorecardkiisa shaqada inuu ka soo bixin karo arrinta saameyn ku yeelan kartaa horta mid jirto waxa waaye ninkan waxa sahay nin waqtiga siyaasadda kursiga la raadinay ay dawladda cadaadinayso isagoo madaxweyne ku xigeen ayuu mucaarad ahay si fiican wixii la duuli ama meel la qabsaday ama la soo rafaaday waxay ahayeen nimanka siyaasadda sax badi ku jiraan guriga baarlamaanka ku jiraan baarlamaanka ay ku jireen nimanka ayaga ayaa la duulay ayaga ayaa la rafaaday ayaga ayaa kursiga soo dhacay ayaga ayaa kursiga soo dhacay maanta markii imaado khayraadka marka meel ugu tagi kartid malaha ayagaas ka bilaabay ayaga ayaa iska bilaabay laakiin waxaa jirta meelo barkood oo u dhiibi karin qofka siyaasiga haddii aad fiiriso xagga Ministry of Foreign Affairs markaysa Ministry of Trade and Investment waxyaalo waxaa jira dad ayaga ku firfircoon u leeyahay kara hadda dad fiiriso arrintanayto oo hadda meesha Moses Kuria laga qaaday kala haddii aad u dhiibtid Aadan Maxamed waa nin ku takhasusi xagga becsharada waa economist qofkaas oo kale markaas u dhiibtid meesha iyadoo ka soo muuqana waana nin maanta siyaasad ku jiro oo siyaasad toos u bareera maaha soo markaan waxaa la rabay madaxweynaha inuu wax kala qaado uu dhaha wasiirkaas waxaan u dhiibayaa dad siyaasadda ka madax banaan ayaa laga rabay tii ayda may dhicin hadda dad fiiris Ministry of Foreign maxaa la dhahaa Interior oo kale Ministry of Interior oo kale waxaa laga rabaa nin siyaasad soo maray maxaa yeelay meesha ayda maalin kasta county commissioner la hadlay maalin kasta sub county commissioner la hadlaysa professional commissioner la hadlay madaxweynaha u gudbinaysa war soo waxaa la rabaa qof markaan miisaanka siyaasad soo maray oo fahmay dynamics county-yaasha fahmaya la rabaa taas oo kale waa iska cad laakiin gobolo qaar waxaa jirta aan la geyn karin qof siyaasi haddii aad geysan isku ciboweys soo madaxweynaha markaan waxaa iskaga qaldamay isaga waxaad la yani saaxiibayaasha wax gaarsii tii ayda laakiin ma leeheen yaa meeshan ku haboon iyo inta ku haboon ismaydin soo taas ayaa ka hoostay haddii aad fiiriso hal sano hadda ay meesha ku jiraan scorecard-kooda haddaad fiiriso dawladda maanta la joogo 100% hataa 20 uma hirgelin 20
hataa uma hergelin haddii aad fiiriso maanta yani waa la geej garayna haddaa la dhaha waxaan opinion polkan noo maxaa la iska bax maxay la opinion polkan haddaad fiiriso oo kama infotrack waxaan waa iska lacag laakiin qofka shacabka meel kasta oo joogaan Baringo markaysa Nandi Eldoret hataa meesha isaga laga soo dhashay ayaa qaylaayeen Mandi waxay lahaayeen 5 sano way nagu badan tahay 3 sano nooga dhig 3 sano aan nooga dhig madaxweynaha anaga 5 sano maxay yeelay waa tii askeeni maxaa la dhahaa senatorka Nandi ayaa dhahay madaxweynaha 7 sano looga dhig sax sababma ummadii way hadleen waxay dhahay ninkaas anaka nama mathala waa dadka Nandi ah anaka nama mathala waxaan rabnaa arinta madaxweynaha in 5 sano laga soo gaabay 3 sano laga dhigay waxaa keenay in ay ku qancin sidii madaxweynaha as dawladdiis u wada sidii dhaqaalihii as u wada markaysa maxay yeelay maanta dad fiirist dhaqaalaha kor u socda sax maalin kasta niga shidaal buu ku diri maalin kasta tax cusub baa soo bixi te ummadani way rafaaday si u socod hadii sanadkan uu dhamaado 2024 meesha lagu gaaro ama dhax aakhirkeeda hadii uu saan u bedeli waay waxaad arki doontaa dadkii mudaharada sidii hadda ka soo bilaawatay Egypt oo kale ama Tunisia wax la jeeyo Arab Springs inay ka dhici doonto wadanka u malaynaysa maxay dadkii way noogeen okay arintan anako soo xireyna midaan isku shaandhaynta golaha wasiirada hadda salahan ninkeeda Musalia Mudavadi waxa la geeyay wasaaradda arrimaha dibadda horaan wuxuu isku hayay wasiirada dhan sida wuxuu ahaa ra'iisul wasaare camal ayuu hay dadka siyaabo kala gidsanaya arintaas ray u dhiibteen ay leeyihiin Mudavadi waa nin degan xilal badan ayuu soo maray wax qaarata waxay leeyihiin xilkan ka weyn ayuu soo qabtay oo madaxweyne ku-xigeenka vice president ayuu soo qabtay leeyihiin marka odaygan Mudavadi markaad qiimeyso wasaaraddan loo dhiibay hadda arrimaha dibadda مثل inuu ka soo bixi karo waayo arrimaha dibadda waxay leedahay sharci fara badan xitaa markaad madaxaad soo dhaweynayso garoonka soo dhaweynayso qaabka loo salaamayo xitaa waxay ka mid tahay sharciyada u yeela arrimaha dibadda marka ma ka soo bixi karaa ninka leeyahay Mudavadi arrintan anaga horta aan u malaynahay Mudavadi horta waa nin iska culus waa nin culus arrintaas oo wasaaraddaas aydan waxay u baahan tahay qof waqti kasta xaadir ah safri kara meel kasta aadi kara airportka qof ku tagi kara madaxweynihii protocol la hadli kara soo arin protocolkeeda ayaa iska badan aniga ahaan uma malaynayo Mudavadi inuu meeshaas ka soo bixi karo sax mid waa ku soo baxaa mid waa u soo bixi kara xagga markii yani diplomacy halla ama markaas qodba soo jeedina qodbadiisa ma noqonayso qodba wadan duraaya ama qof ama ambassador duraay ma noqonayo maxay waa nin degan oo marka ay yani nin odaynimo ay ku jirto waay qof yani iskama ambaareynayo ama qof muduqeynayo markaysa wadan sidoo kale ma gali doono laakiin firfircoonidii iyo orodkii email joogi tii aydahed laba arrin baa ka reebaysa asagoo dabcigiisa ay tahay yani qof iska degan oo qaylo aan badnayn iyo isagoo duqnimo ku tagsaday laba arrinba way ka reebaysa maxay hadda dad fiirs Alfred Mutua oo Alfred Mutua waxa sayneen oo iska dhalinyar ahaan oo shabshabe ee boorka hadii la 8 saacadood safarkaas soo maxaa la wasiirkaas soo daga dalda waa tii kara markaysa laakiin dibkiisa waxa waaye kuma takhasuusin arrimaha diplomacy maxay dad fiirsid Alfred Mutua waxaad soo akhrisay waa communication markaysa ma lahayn yani adi fikrad oo diplomacy international relations waxas ma lahayn tii ayda ka maqnaa haddii aad fiirisid Mudavadi backgroundkiisa Mudavadi waa finance waxaan xagga lacagta ama ganacsi maanta ayda tii ayda hadna ma laha soo waxaad arki doontaa markaan protocolka ma fahmayo number 1 mada labaad waa nin culus oo waqti kasta loo baahan yahay lama heli kara soo waxaan maleynaa Mudavadi meeshaas la geynay inay ay ka daran tahay Alfred Mutua ana waxaan leeyahay haday qabtaan Alfred Mutua baaronay gartay okay marka laga tago wasiirada uu madaxweynaha isku shaandhayn ku sameeyay arrin kala jirta oo aad loo sugayay inuu madaxweynaha soo magacaabay waa liiska safiiradaha wadamada kala gidsan ee loo diray qaar xitaa uu hore u magacaabay madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta waa laga soo qaaday shaqadooda maxalada revoke lagu sameeyay qaarna waa la magacaabay si guud safiiradaha cusub ee la magacaabay sidoo aragtaa horta mid warayso waxa waaye dawladda hore oo madaxweynaha baxay Uhuru ayaa safirinta ayda waqti ay magacaabay oo meesha joogay sax waqtiga ayda hayna marka la geeyna safarada waa iska leeyahay xilli waqtigaas ayay ku agto waqtigooda haddii ninkii meesha loogu qanca oo si fiican ugu soo baxa madaxweynaha kale soo gala waa muddo oo kordhin kara ama haday heen waa ka soo qaadi kara soo madaxweynaha uu soo baxay had in nimanka ay ka qaarna u yeeran qaarna meeshii uu geeyo ku cusubna magacaabo soo waa arrin sharciga waafaqsan
soo wax dhib oo maanta ka jira malaha ninka isaga doontana uu geynaya صح laakiin baarlamaanka ay imaadayaan waa la fedgrayn doonaa Si fiican. baarlamaankan waxaa is leeyahay sharci qofka isaga ahay markii lagu magacaabo cabdinuur adi maanta hadda sacuudi lagu magacaabo صح baarlamaankaas imaadaysa warqadahaas kulli baa la fiirinayaa waxaa lagu leeyahay ninkaan meesha u qalma ama uma qalmo ninkii aan u qalmin madaxweynaha waa loo sheega waxaa leeyahay ninkaan meesha uma qalma sababtan iyo sababtan aad u qalmin asaga qofka lagu magacaabay صح. soo wax hadda maanta dhib oo ka jira malaha waa taas waa sharci waafaqsan tahay gartay arrinta kale liiskan la socoto safiirada la magacaabay hadalin badan dhalisay waa arrinta ku saabsan laba shakhsi ayaa loo kala magacaabay muqdisho iyo hargeysa marka arrintaas hadalin badan ee dhalisay waxaan leeyahay waa markii ugu horeysay in la arkay in qof safiir in loo magacaabo hargeysa muqdisho waa la arki jiray laakiin hargeysa arrintan ma la is dhihi karaa waa qalad ka dhacay madaxweynaha mise waa lala talay inuu safiir halkaasi geeyo horta midda horeysa waa nasiib daro inay madaxweynaha aas u magacaabo safiir hargeysa aniga ahaan waxaan aaminsanahay hargeysa inay ka mid tahay soomaaliya oo la isku dhahaa the federal republic of somalia صح soo laba ambassador ma geyn karta hal wadan laakiin Soomaaliland waxay leeyahay wadan usuga adiga taas waa doonaa taas waa ma doonaa صح aniga waxaan ahay nin u horeey oo cambaaray arintayda facebook page-kayga on orti waxaan dhahay marka iidahed madaxweynaha Kenya waa inuu uu taxgeliyo صح xornimada iyo territorial integrity-ga Soomaaliya haye maxay yeelay adiga maanta ka soo qabo waa madaxweynaha Soomaaliya oo maanta safiir u magacaabay wajiya صح ama Mandera ama Garissa saas oo kale waay soo markaan dawladda Kenya waxaa laga rabaa inay maxaa la dhahaa wadanka waa wadan anaka noo jiraan صح si Kenya Tanzania Uganda isku nahan oo kale hadda aad fiirisid East African Community saddex isbuuc soo dhaafnay Soomaaliya waxay soo codsatay ama arji soo dirsatay in lagu daro East African Community si fiican ay soo dirsatay maxay u soo dirsanay waxay u soo dirsanaysaa waxay rabtaa inay soo gasho Kenya Uganda Tanzania Burundi ilaa iyo Southern Sudan yani waa isku dhina xuduud baa leenahay Si fiican. waa wadan walaal ah waana wadan jiraan soo wadanka asaga hay maanta inay adiga bedelkaas xaal u keen lahayd inay adiga hadana culays kala sii saartay ama xiisa aan jirin akacisid dhibkeeda ay leedahay waxaad arki doontaa muqdisho oo leh safiirka aniga nooma imaada kara waxaad arki doontaa berri muqdisho oo leh anaka ganacsi Kenya lama hagaajinayo meeqa goor oo arrimsan kale ay soo dhaceen oo Kenya qaadkeedii laga cili muqdisho صح oo la dhahay intaan baa naga baqasaan way soo arrinta aydaad xiisada baa si wadaan waa qaldanay madaxweynaha inuu u magacaabo ambassador hargeysa midda ka sii daran ninka la magacaabay maanta ama meesha la geyn rabo waa nin reer wajeer waa meesha ana ka imaado markaysa si fiican waxaan dhihi karaa aniga hataa madaxweynaha inuu maxaa la dhahaa maanta ceeb u soo reer wajeer aniga haddii aan ahaan lahay reer wajeer intaan warqad u qorno madaxweynaha dhihi lahayni waa mahadsan tahay jagadaasna siisay laakiin hargeysa uma socon anaka meel kale haddaad nageynaysa adiga waay hargeysa soomaan nin cidaada raadi kala jiin waxaata u dirsa maxaa yeelay anaka waxaan aaminsanahay Soomaali wixii dhex yeela Soomaaliya xaalan karta maanta Kenya meeqa arno dhex tal laakiin maanta Soomaaliya intay noo imaado Kenya xaal uma gaari karta Tanzania intay nagu soo duusho xaal noo ma yeelan karta Soomaaliya wixii dhex yeela ama gobol isku haysteen ama badda isku haysteen Soomaali way ayaga is xaalin kara anaka Kenyaatiga hadaan ma dhex gali kara anaka Soomaali oo North Eastern ki imaanay wajeer iyo Garissa iyo Mandera ayaan dhex gali kara arrintooda si fiican ayaan dhex gali kara asagoo markaan Sigooy ki imaado ama ki imaado Rift Valley ma dhex gali kara marka hadaan eegno arrintan ma la isdhihi karaa madaxweynaha waa lala taliyay koos madaxweynaha la taliyaa ayuu leeyahay oo arrimaha kala taliyo madaxweynaha ma lala taliyay taladii ma qaadan miya mise inuu maxaa keeni karaa inuu arrintan horta madaxweynaha waa lala taliyay arrinkan waa sii jirtay markii waqtigan meeshaan us joogay ninkii maxaa sahay Uhuru barnaamij sii socday asaga meesha xafiiskaas ugu imaaday waa arrin sii taalo warqad sii taalo waay waa arrin kol hor laga hadlay tii madaxweynaha taad imaaday kii Muuse Bixi kor inta imaaday arrinta waa arrin sii socotay laakiin waqtigan asaga magacaawa waxa asaga magacaaway soo hadda wixii marka asaga xafiiska joog asaga yaa mas'uul ka ah waxaan u maleynaa anahan tala aniga yani fikirkayga ay tahay nimin Soomaali oo wasiirintiisa ku jiraan ama siyaas maxaa la ama siyaasiin ayaa ninkanayto
صحن أول تلي صحن أي أول تلي صح وهذا مقدشو هي حرقيسة كلا جاي لو ذاني أديك ما أنت ورطة قبل كسنة واحد ورا سفعا وجيرنا وحش ورطة مدير أنا وحش ورطة قارس وحنا شرطة مركزة استجيت كالسياسة أما يعني حاول أنت يجي حاول أنت يجي أياك أنت ورت أنا قف حق لجي صوت ما صح لكن وحي هاد عرين غلط نك لا تليو لكن أمد جرت حواي مدحوينه ولا لا تليا لكن قوان كسالي حاول لا تلي حاول أصلا له مجرت صح قوان قدام بي أسالي سو غلط كبقول كي بقول ويليام سمي رتوال حاول لا تلي أما حاول أصلا ده تسوى كسوتك اوكي arrintan waxay aad doontaa baarlamaanka markii la sameyn doono turxan bixin ama vetting la sameyn doono maxaa loo malinaya inay ka soo bixi doonto vetting ama turxan bixinta ay sameyn doonaan xildhibaanada arrintan ku saabsan territorial integrity-ga Kenya Soomaaliya u dhaxaysa doodaas ma laga yaabaa in arrintan ay ka soo bixi doonto waa laga yaabaa shalay horta waxaa hadlay wasiirka arrimaha maxaa foreign affairs Soomaaliya ayaa hadlay wuxuu yiri waan aragnay ficilka ay Kenya hagaajisay صح markaysa wuxuu yiri isbuuc gudaheed ana kan jawaabaan ka soo celin doona صح markaysa jawaabta ay Soomaaliya soo celin doonto waa iska cad way iska cad mid ugu horeysa waa inay Kenya iyo ayaka ganacsiga ka dhaxay ay joojiyaan markaysa mid labaad waxay noqon doontaa idina safarkaas ama ambassadorkaas Muqdisho loo soo magacaabay Kenya ma imaan kar oo labada wadan ay kala go'an boqol goor way dhacday dibka markaan jira cilada jirta maxaa waaye Kenya ama madaxweynayaasheeda kama cilmi qaatan waa yani waa arrin soo noqoto maxay waxa la rabaa arrinta markay maanta ay dhacdo inaas adiga as maxaa la wax ka baran kartid biri wax aan ku huraynin markaysa daarkas hadaad soobini Somaliland ana kama diidin waa wadan oo wadan walaalo waay soma laakiin anaka Kenyan hanana adana arrinta siyaasadda Soomaaliya gudaheeda ka jirta waxba naga ma gelin muqdisho dad qaraabo aan ahnay Somaliland dad qaraabo aan ahnay markii Kenya la imaado qofka Allah qofka noo imaado anaka waxaan ahnay dad walaalo laakiin ayaga dhaxdooda waxay isku hayaan taas ayaga u taala meesha isgaarsiiyaan ayaga hadii Soomaaliya gaar u goodo Somaliland oo adduunka dhammaan aqoonsado oo wadan gaar ay noqoto safaarad kasta qof kasta waa geysan karaa laakiin maanta adiga maxaa ka dhigi wadanka ugu horeeya adduunka dhamaado oo safaarad meesha geysana maxaa ka dhigi soo Kenya way gardaran tahay madaxweynaheeda ayaa gardaran ninka Allah ninka likaas la tali ayaa gardaran markaysan anina waxaan dhihi lahaa haday tadeed ay tahay reer wajeer inay dhahan kursigaas oo ma socono meesha arabta geysan okay liiska safiirada la soo magacaabay shakhsiyaadka kale Soomaalida ku jiro waa laba qof oo ka soo jeeda Mandera ayaa lagu daray liis waxa loo diray gabar Switzerland iyo wiil ayaa loo diray Doha Qatar marka taas maxaa fariin nooc diraysa ma la dhigi karaa inkastoo dadka qaar ay leeyihiin Soomaalida ku nool gobolka Waqooyi Bari dawladdan si fiican u soo dhisin oo waxay u badnaayeen odayga Raila Odinga laakiin waxay leeyihiin wali William Ruto dadka ayaa xilal u magacaabay leeyihiin marka taa maxay ka turjumi kartaa dhanka siyaasadda marka la eego dadkan wiilkan iyo gabadhan iyo wiil ka soo jeeda wajeer oo xilalkaas loo kala magacaabay horta mid hore waxa waaye yaa ku soo dhisay kaleexma صح qofka markii siyaasado ku jiro ama madaxweynaha arrimo badan way fiirnaa sharcigana waa isjira meesha markaas wax qaybinays waa in dadka dhamaalo oo Kenyaatiga ay meesha ka muuqdaan cid kasta inaad gaarsiin kartid hadii gaarsiin karna taa wixii Allah wixii askanti inay bulshada Kenyaatiga ka dhex muuqato cid gobol kasta ka dhex muuqato wadanka hadaad fiirisid inkastoo 47 gobol Aasiya laakiin waa 8 province si zaman hanji North Eastern dhamaalo duurkeeda asaas ku Central Rift Valley sabab loo kala dhigay Western sabab loo kala dhigay soo madaxweynaha magacaabku uu magacaabay horta wuxuu fiirinay Soomaali meesha ma ka muuqata صح markaysa hadii aad si fiiriso Mandera ahaan Mandera xisbigii 95% waxay ku soo galeen hal xisbi oo la UDM صح UDM ki wuxuu la hagaajiyay heshiis dawladda صح markaysa hadii aad fiiriso markii speaker la dooranay laba aqal ba speaker صح ama arrin kasta oo dawladda ay wadato ma xildhibaanintooda ama senadkooda gaar ka maran dawladda ay la taagan yihiin dawladda ay la taagan soo xisbigaas xana ay wax ku helayaan xisbigan inay xisbiga dawladda uu taageerahay uu ku jiro ay wax ku helayaan waxa kale wax ku helayaan in daarta ay dahayd
haddii aad fiiri Soomaali ma kala dheera Raila inaas hela laga yaabaa 50% kana as hela 45% markaysa so labada dhinac baa soo dhisa Soomaali laakiin midda ugu weyn maanta Mandera ay ku faa'iidi waxa waaye xisbiga UDM oo soo oo la hagaajisay heshiis maxaa la dhahaa dawladda haddii aad fiiris maanta cidda abaluya dawladdan jaga fiican ay ka haystaan waxay haysteen cabinet secretary waxay haysteen speaker ay haysteen aqalka national assembly waxay haystaan intaasoo wasiir waxay ku intaasoo PS kaas hadda in ka soo jirtan laakiin waa ku jiraan maxay ku heleen ninkeen maxaa la dhahaa national bashka midda NIC iyo for Kenya waxay heshiis la galeen dawladda oo soo dhisan markaysa sidii hadda Mandera ay u helayso waa UDM saxaana ku heleen soo markaan waxa maleynaa wax maanta dib oo ka jir malaha labada qof oo meesha loo magacaawina waan ku faraxsanahay waana taageerayna haddii Hargeysa la geyn lahayd maanta iyaga waxaan baarayn lahayd laakiin haddii mid Switzerland la geey mid Doha la geey waxa la magac shaqadiina si fiican guto waana i hambaleynaynaa gartay aad badan baastay wali waxaad nagala socotaan barnaamijkeena arrimaha ee gobolka waqooyi bari oo haadano kala socotaan television-ka Shakaal barnaamijkeena toddobaadkan waxaa gudahaan ku falanqeynaa arrimaha ku saabsan isku shaandhaynta golaha wasiirada oo madaxweynaha uu sameeyay maadaama arrintaasi hadaleyn badan ay dhalisay qeybaha kala gidsan ee bulshada barnaamijkan waxa martigu Maxamed Sheekh asaga kuma cadeer karula qabiir falanqeyn dhanka arrimaha siyaasadda inta barnaamijkan ka bixin arrin ay jirtaa soo hadal qaadeen rabeen ku soo xirno waa arinta ku saabsan xisbiyada siyaasadda ee gobolada ka jira hadda hadalka ugu dambeeyay waxa soo hadal qaaday in Mandera xisbiga leedahay UDM xisbigaasina 100% laga soo dhisay Mandera meelo badan sida Wajeer Garis iyo Marsabit Tanariva meelaasna xildhibaan ay ka heleen mar badan waan ka hadalnay in dadka gobolka waqooyi bari xisbi gaar ah ay sameystaan laakiin waa markii ugu horeysay aragna in xisbi noocan in uu saameyn si qaran ama national uu saameyn ku yeesho xeerata la helo PSS la helo xeerata chairman board laga helo marka siyaasadda mustaqbalka gobolka waqooyi bari hadaan eegno sanadaha soo socdo dhanka xisbiyada balada dhigto horta mid horeysa waxa waaye waxa maleynaa wajiya Garis Mandera hatta Isiolo Marsabit haday isqabsan lahaayeen oo hal xisbi kooda in la imaado lahaayeen sax arinta waa laba ina hal xisbi aad la imaadid halkaas xisbi aas ku heshiisiin laakiin hadhow tay damba yaa madaxweyne u dhisnaa isku raacdiin taas waa meeshada laakiin ogow haddii aad heli lahayd maxaa yeelay jagada la dooranayo meel kasta hadda North Eastern waa 6 xildhibaan MP waa women rep oo 7 soma senator oo 8 ku noqonaya iyo governor 9 sax gobol kasta 9 ay ka soo galeysay soosma hadii 9 ka soo gaarisay 9 ka soo Mandera 9 ka soo Wajeer hal xisbi isku han lahaayeen horta xoog bay lahaayeen waxa jira wax la political bargaining power xoog siyaasadda maanta ay wax ay ku codsan karaan ama wax ay iska riixi karaan ay lahayn laakiin dibka jiro waxa way siyaasadda North Eastern ama hataa wadanka baa ka soo qabo dadna madaxweynaha waa dad waxa jira madaxweynaha aad ka qarabto waxay aaminsan yihiin xisbi madaxweynaha marka ciidan fadhiy inay ku jiraan mooyo inay waxba helayeen ay aaminsan dadna waxay aaminsan yihiin philosophy mucaaradka yani anaka hadii mucaarad aan noqono xisbi mucaarad waana la aqoonsana ma arkaysa soo laakiin Soomaali waxa u fiicnaan lahayd xisbi kooda inay la imaadaan oo iyaga saddexdooda gobol ay xisbi kooda loo aqoonsay la imaadaan markaas iyada national politics waa laga aqoonsana meel ma ku gaarayeen laakiin inta ay waxa soo galaya hadda dad fiirisid oo kale Wajeer oo kale senator waa UDM sax ma sax laba xildhibaan waa Jubilee laba kale ama saddex kale waa ODM ku kale waa UDM mid waa ODM soo markaan waxa ay ka dhaxdooda si kala qaybsan laakiin hadii arki lahayd iyagoo uniform hal ku soo galay I think horta xoog wala hadlay laakiin siyaasad marka la dhaho democracy ayaa jira sax adiga waxa isku soo istaagay xisbigan adiga kana isku soo istaagay adiga baa ku soo istaagay waa la tartama meesha mid baa soo gala dynamics waa fiican tahay laakiin waxa national politics xoog kula hadal kartaa markii soo aajirta hal party balka hatta qof kale ku soo gala sax laakiin markaas hal xisbi ay leeyihiin waxa la haday stake ku leeyahay national politics sax laakiin maanta la joogo North Eastern dhamaanteed Isiolo ku dar NFD waxay noqotay meel aan lagu siyaasan maxaa lagu tartami karin sax ayadoo kuriyada tiiriya ay si kala socotaa soo waxa maleynaa sidii roba u hagaaji in la isku imaada la tashada hadda da fiirisid oo kale Garissa
ducaale aa joogo waxaa jooga nadiif jaamac dad adagaa joogo صح haddii aad fiiriso wajeer dad adag ayaa jooga markaysa governorgaa joogo صح senatagiisaa jooga dad adag oo siyaasad xaggeed way jiraan صح mandera waa sida oo kale hadday isku imaadaan oo hal ay hagaajiyaan strong political things waa khatar waqti waxaa jira uu widi ninka meeshaan ukuria tani upia صح upia ayuu widi way ficnaad waa arrin ficnaheed صح markaysa waa la isku raaci waay waa lagu kala tagay so haddii isku imaadaan oo hal xisbiya oo adag ay keenaan inkasta oo meesha groundka lagu kala tegi doono maxaa yeelay qolo baa loo kala istaagi doonaa صح wax qof walba isku istaagi karaa qof walba wuxuu laakiin haddii maanta ay heli lahayeen gaafanayaal isku xiran صح senatayaal isku xiran embiyaal isku xiran hadday heli lahayn womerab isku xiran oo adi idalla waa lagaa baqi lahay horta laakiin waa meel kasta noo kala cadda hadda wax maanta aan leenahay noo istan galac waay maaha waa democracy maxaa yeelay markaad fiiriso democracy xisbiga ugu yar oo waxba aan haysan inuu soo geli karo waay صح ninka keligiis iska istaago independent inuu soo geli karo waay so democracy ay ku xiran tahay anakana wadanka Kenya democracy-gan waa democracy maanta la tartamaya Mareykanka صح Ingiriiska Australia la tartamaya soo marka maanta wax dhibka weyn ma jiraan laakiin ay Soomaaliya hadaan waxaan dhahnaa anaga dawladda soo galo kuma qabno qayb balagi qayb lugu inta kula jiraan lugu dhinta waana maslaxa wax maanta dhib ma jiraan dad inay mucaarad ku jiraan dad haddii la isku imaadi karo oo fikrad hal xisbi aan hagaagsan la isku raaci kara way fiicnaan lahayd haddii la waayo sida ayaa iska hana laakiin suurtagal ma noqon kartaa gobolada kale wadanka markaad fiiriso tusaale ahaan gobolka hadda la yirahdo western galbeedka laba siyaasi oo cadcad oo dadka gobolka ay dhegeystanaa jira waa ninka la yirahdo Wetangula iyo Mudavadi aad baa looga dambeeya haddaad tagta gobolka Ukambani Kalonzo waa la dhageystaa haddaad tagta Nyanza Raila Odinga waa la dhageystaa haddaad tagta xeebta ninka la yirahdo Joho iyo dad baa la dhageystaa laakiin waqooyi bari waxaad moodaa inaan is reexayno oo is ogolaanaynin in dadka qaar aan xilkaas u dhiibno horta Soomaaliya aan ay Soomaali waa madaxdagti صح in lagu talay Soomaali ma ogola markaysa waqti waxaa jirtay hees ay qaaday islaantii gabadhi maxaa lahaa ay qaaday heesta iyada waxay ku lahayd wala tashan mayna aan kuu talay ii talinamaysa adiga ii tali kuma talinay horta Soomaaliya unaan taas ma malaynaya in la isku raaci doono hal xisbi ama hal maada in la isku raaci doono oo ma malaynaya laakiin waxaa la rabaa maanta Gaarisa markii la dhaha siyaasi ahaan dadaa ka firfircoon صح wajeer hadaa la dhaha dad ayaa ka firfircoon haddii fiirsid Mandera dad baa ka firfircoon صح laakiin ayad naftinkeedii haddana waxaa lagu sii kala tagsan yahay kursiyaashii maxaa yeelay markii kursi la imaado oo la imaada kuru u imaada mid u horey Soomaali dilahaysa waa qabiil qabiil abaaluya xisbi isku dilayeen kalenjin xisbi isku dilayeen kukuya dafiris xisbi isku dilaya laakiin noo istan qabiil ay isku dilaya صح qabiil xisbiga markuu imaado oo aragtid uu yahay Jubilee haduu yahay waxa lagu leeyahay xisbigaas wajeer Soomaaliya xisbigan dugudi ku badan dugudi ku badan cidda kale meel kale ay aadaysaa ama waa la fiirnaa waxaa la leeyahay xisbigan oo ODM waxaa ku badan ajuraan ku badan ana meel kale baa laaday soo Soomaali waxa kala geynaya waa qabiil waana adagtay si meesha ugu baxtay maxaa yeelay haddii adiga as tartami kan uu tartamay hal kursi la isku haysto markaan wixii ummadda lagu bulshayn karo dadka siyaasiga ay isticmaalaan oo dadku isku keeni karaan waa arrin qabiil marka ay campaign gareynayaan qabiil ahaan ayaa ummadda loo saameynaa oo leeyahay war anaka reer hebel hadaan waa inaan waxaan doonana saan baan ku doonayna ninkii mataqaana wax loo doonay ama kulaha riday markiisa waxaa niyada ugu xiran qabiil shanta sano marka ay dhamaato ninka soo galana arrinta qabiil meesha ka bixi maayo ninka isaga ayo shalay qabiilkii kulahay ayaa berri ku leh anigi hebel aan soo dooranay hebel baa soo waxba kuma haysan meesha soo marka Soomaaliya hadda qabiilnimo iska saarto oo dhahdo yaa wax noo qaban kara markiisa kursigan yaa ku haboon hadii la dhaha Soomaaliya israacaysa laakiin inta qabiil uu jira xisbin isku imaada karaan oo magaagsan karaan dhibka jira qabiil waay walaal aad ma santahay waxaan jeclaan halkaas inaan ku soo xirno barnaamijkeena toddobaadkan waa barnaamij runtii aad xiiso leh toddobaadada dambe insha Allah ayaan si falanqeyn doona waxyaabaha ay ka taagan wadanka iyo guud ahaan gobolka waxaana jeclahay inaan u mahad celiyo saaxiibkay Maxamed Sheekh oo kuma dheer Karuur asaga qabiir arrimaha siyaasadda falanqeeyo barnaamijka ay weli qayb qaatay barnaamijka waxaa isku soo dibiraday halkan si toos in la socodsiinayo waniga Cabdinuur Cali Alxaaji insha Allah intaan dib hoodan ku doon barnaamijkeena xiga waxaan inkii tagay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh